habeenkii xalay ahayd jawgu waxa uu ahaa mid degan hoolka ay lagu ballansanaa inay munaasabadu ka dhacdo waxay ahayd hoolka farashta ee jaamacadda Camuud ujeedka munaasabadani oo ay xafladda xidhitaanka tababar socday muddo 2 maalmood ah oo ay ka kala qayb qaadanayeen ardayda dugsiyada magaalada Boorama jaamacadaha iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale shirkadaha ku yaala magaaladani Boorama ayaa waxa ay habeenkii xalay ahayd ka dhacday hoolka jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama kulankaasi oo ay soo xaadireen badi ardaydu wax ka baranaysay muddada 2 maalmood ah iyo sidoo kale macallimiintii tababarkaasi bixinayay iyo shirkadda Telesom iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama ugu horeyn kulankaasi ayaa waxa isla markaasina hadallada iska daba qaatay labada trainer ee tababarkaasi bixinayay waa qoraa Ismaaciil Ciide Tukaale iyo Sheekh Cabdilaahi oo ku dheeraaday muddada 2 maalmood ay cashirkay u faa'iideeyeen bulshada ku dhaqan magaaladani Boorama caasimadda gobolka Awdal ayaa iyagu waxa ay sheegeen waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida fiican ee aad uga soo qayb gasheen barnaamijkii aan qabanay ee aan ugu talagalnay kordhinta wacyiga horumarinta qofka runtii dad fara badan oo idinka oo asxaab tihiin fursad aad hesheen ma helin waxaana u diiday inay fursad helaan waa aaminaad qaldan oo ay aaminsanaayeen qodob ka mid ah qodobadii aynu ka hadalnay oo haysta awgeed qodobkaasi wuxuu ahaa inaanay waxba ka dhinayn aqoon korodhsina aanay u baahnayn qofku hadduu qodobkaa uu ku sugan yahayna weligii horumar ma gaadho hadduu shirkad yahayna horumar ma gaadho oo shirkaddu markay aaminto inaanay waxba ka dhinayn waxba u kordhi mayso hadduu shakhsigu aamino inaanu cidna waxba ka faa'iidaysanayna aanu waxba u faa'iidaynayna weligiiba halkaa dhaafi maayo maxaa isbeddel bay keeni kari maayo marka yacni waxaan ka wadaa idinku mar haddaad garateen in aad diyaar u tihiin inaad wax faa'iidaysataan waxaad nasiib u hesheen ama aad ku sifowdeen inaad aqoontiina korodho haddii aqoontiina korodho oo cid walba oo waxay ku dhaanta aad diyaar u noqotaan inaad ka faa'iidaysataan horumar baad runaantii gaari doontaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya in xataa dowladdu inay sii dheeraato reer Boorama wax lagu aqaanaa oo caan ka yihiin deeqsinimada iyo karamka markii hore xaggan nimid ambaska ka soo deegay ninkii soo kaxeeyay xagga hotelka ay keenay waa in hadday garaneen wixii garteen ahayn reer Boorama oo aan ahayn gaarigii tigsiga uu joojiyay gaarigii tigsiga uu lacagta siiyay war lacagta waa haystaa may wallahi qaado gaariga raac marka taana waxay tii ugu horeysay tii ugu dambeysayna dee idinkoo maasha allah sida noo soo dhaweeyey oo cilmigaana ka faa'iidaystay horta waa nagu mahadcelinaya jazaakum allahu khayran talabaad baaraka allah fiikum qofku inuu cilmigiisa intaa ku joojiyo seminaaraadka la qabto badankii qofku hadduu sii wadan iska ilaawaya waa khudbadda jimcaha oo kale khudbadda jimcada waa soo xaadirtaa markaas allah wallahi hadal fiican ku hadlay khatiibkiyo hadal macaan ku hadlay jimcaha kaliya weydii kulli jimcihii hore muxuu yidhi wallahi garan ma cilmi taasaa qofkii ku dhacda sababtu maxay tahay مسؤولين أبوانو iyo ardaydii ka faa'iideystay tababarka muddada 2 maalmood socday oo hadallada iska daba qaatay ayaa iyagu guud ahaan hadalladoodu waxa isku soo biyo shubanayeen hambalyo iyo mahadcelin ayaa waxa iyaguna tilmaameen ardayga la ahaa marna aan waalidka ugu toosanahay waayo waxaan arkayaa inaan ugu weynahay meesha markaan saa u eegay waxaan arkay inaan ugu weynahay runtii cashirka meesha aynu ka baranay khayr allah siiye labada xurub ay siiyeen waxa weeyaan sida ay noo sheegeen qof walba waxa ku qofilaa ama wax uu bartay ahaato wax gaar ah oo ama qalab uu bartay ama maxay hayday wax kale uu bartay ama dhismo uu bartay wax noocaas ah balse maanta waxa la nusay labadii cishee dhaweyd shalay iyo daraad innaga waxayna u saabsan shalay 20 qodob oo innaga inoo saabsan كل نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحري خير الكلام ما
أدل وقلبه هذا الواحد قيمة بدن كيسة جابا لكن معناها ينحرك يمبتدى قدبينه أنا كان راعينا واحد قال لي كده ليه هاي لو ذاك دونا ما صوت اسم الله يراه ما صوت حكي هذا شاف فكرك أما قابك قفك ابن آدم كي وهور مرين كرو مسكحدا إلهي سي إما القرآن واحد كواركتان ما كان دخلية سان أفلا تفكرون أفلا تعقلون أفلا تبصرون أنتوا لو واحد شيء يعني إن الله حركتها وفكر إن الله قرأتها وفكر إن الله كستا وفكر أنتوا وصوح مرجعت سوما طبتم وطاب لياليكم وتبوأتم من الجنة غرفا ومنازلا وبعد هذه أدباد ما سنتين كل وحنا هاي قدوميه اقرأ أكاديمي for training and development قدوميها أساسي أبا معلم كان وحويا اسماعيل تكاد العلا آدها الله صعبه intaa dabadeed waxaa mahadle asaguna safar u soo galay from Burco ilaa Boorama al-ustaad amba trainer Cabdullaahi Xuseen isaguna sacad jiray أنا أفكرنا ما هنا دبادة إلها أن نسكادنا أنا قلت إنك بقالهان ودي جدي سما جواد مرة ذكر سبب شو ترى بس إنك واحد كفكر إنك واحد كوين مركزته إن بريران هلا أبور كيو إن ضمن نقطة وهاي كبرنا عبتاني وحكرنا كفكر شيء هذا سوكرنا أدبنا فرحية إن نرجعه ريبورما رهانتي رسرق بناهي بس إنك هو كم النقطة ريبورما ugu dambeyntii munaasabadaasi ayaa waxaa soo xidhay mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama oo isagu ku amaanay Ismaaciil Ciga Tukaale doorka uu ka ciyaaro iyo Sheekh Cabdilaahi ayaa isaguna waxa uu sheegay islaama oo diinta yaqaanay oo ku dhigayna qiimo badan bay markaa sameynaysaa runtii culimada training ka bixinaysay Sheekh Ismaaciil iyo Sheekh Cabdallah oo culimo maxaa la yiraahdaa khibrad badan u leh runtii sida injineerku wa sheegay aan nasiib uma yeelan inaan ka soo qayb galo laakiin waxaan ku faraxsanahay dhammaan akhyaarta iga soo horjeeda oo waxaan oran karo 70% ardaydeedii weeyaan ayaan aad ugu faraxsanahay inay iga horqalin jabiyaan maanta laakiin waan qalin jabin doonaa insha Allah ta'ala runtii markuu ii sheegay Sheekh Ismaaciil Tukaale markuu ii sheegay maanta uu yiri waxaan soo xidhaynaa barnaamijkaas ayaa soo xidhaynaa uu yiri waxaan ku yiri qolada ugu horeysa oo qabanaysa waxa kamid ah qolada golaha deegaanka gudoomiyaha ayaan galabta u sheegay inuu training-kan noo bixiyo insha Allah ta'ala waqti ayaan soo qabsan doonaa oo noo bixin doonaa insha Allah ta'ala ugu dambeyntii munaasabadaasi ayaa waxa la gudagalay qaybinta jawaa'isyadii iyo shahaadooyinkii ay ardaydaasi mutaysteen Cabdirasaaq Xaaji Cumar Miicaad Cabdirasaaq Qawliyo shabakada caalamiga ah ee Boorama News Boorama